live stream keeni maalinlaha ee aan ku trade gareynayna lacagta dahabka sida aragtaan waa London session taariikhda waa 23 September waa maalinka labaad oo maaragtaan trade gareynayno asbuucani isla maraantaasina trade kan sida aragtaan asalkeena waa 22 bib kaliya isla markaana TB-ga ama full target kan waa 51 bib so trade kiisa koreey isla baa qaadanay 28 bib waxa rabna trade kan inaan full recovery ku sameeyno isla markaana profit aan ka helno sida aragtaan 15 ka aan trade ka qaadanay waxaan ka hor imanaynaa suuq very strong oo movement xoogan oo sida ku soconaya waliba candle-ka 15 ka hadii aad fiirisaan isagoo aan xirmin aan trade ka soo baay garanay sababtuna simbar waxay tahay waxaan aad confidence ugu qabay sababkan ku trade garanayo isla markaana ruleskiisa ay dhameystirnaayeen mar hadii ruleska ay dhameystiran aan helana there is no waxa way via wax xabsi meesha ma jirto so trade ka sida aragtaan markiiba candle-ku alxamdulillah rejection xoogan buu noo sameeyay isla markaana bullish nadiif oo aad u qurux badan buu noogu xirmay all the way isagoo TB1 keena suuqa u gaaray sida caadiga ahna waxa way profit kan oo qayb ka xiranay trade kana waxa dhigana break even si marka aan iskaga ilaalino ama aan uga fogaano in trade ka aan loss ama khasaare kala kulano candle-kan marka uu noo xirmay oo bullish strong oo ku xiran iyo candle furmay sida aragtaan dhaqaaq yar xoogan buu sameeyay oo nagu soo laabtay laakiin markaas ardada waxa uu sheegay hadii candle-kan baadhigiisa uu ku xirmo meel ka sareysa yani weegaas aan calaamadinayay hadda candle-kii horeeto inaanay wax xabsi jirin isla markaana bullish-kan ama momentum-kan uu si nadiif u sii socon doono all the way ilaa TB-geena heleno laakiin hadii uu meel ka hooseyso ku xirmo that means pattern ku yara adag tahay in momentum fiican oo bullish uu sii sameeyo trade-kan waa iska manage garan lahayn laakiin sida aragtaan seconds-kii ugu dambeeyay intii aan sheegay buu candle-ka sameeyay baadhigan wuxuu ku xirmay meel sare oo ah intii aan doonaynay so new candle hadii uu weekend oo sameeyay isagana sida aragtaan markuu furmay isla markiiba waxa way momentum-kii aan ka rabnay iyo movement-kii buu noo sameeyay ilaa iyo all the way arkaysan sida fiican uu noogu dhaqaaqay oo bullish strong uu noogu xiray isagana sidiisa lamida so hadda new candle furmay isagana last wuxuu ahaa midkii markaas TB-ga aan doonaynay inuu naga saaro sida aragtaan aan niri week waa inuu inoo sameeyaa kadibna automatically uu TB-ga naga saaro intii uu buu sameeyay alxamdulillah trade-kana wuxuu na siiyay full target 51 bib taas oo full recovery aan ku sameeynay sidoo kale profit dheeriyan aan ka helnay maalinkeena si qurux badan aan ku soo xirnay ilaahay maad iskale live stream-keena intaas ku eegayay nabadgelyo